shirkadaha indhabirta gaafane iyo talasom waxaan ugu baaqaynaa in ay alaabtooda iyo qalabkooga soo diyaarsadaan waxaan kala shaqayn doonaa in aan ka gacan siino wixii faasilis ay u baahan yihiin waxaan kaloo ku darayaa maamulka shirkadda Sunpower waxaan u sheegayaa annagu waxaan xor baanay annagoo xoraan dhalanay annagoo xoraan dhimanna anta waxaan joognaa Axmed Dhagax oo khad cagaaran la dhex dhigay sidii baarliin meelo badan oo kale magaaladiina way jiraan aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan leenahay xukuumaddu ama madaxweynuhu wax ka qabta arrinka noocaas dadweynuhuna ka xoroobaan heeryada Sunpower oo ganacsigu xor xarkaha gacantooda ku jiitaan oo ha gashadaan saacadda $10 kama yaran karto oranaya saacadaha u kala tilmaamayo oranaya saacadda ma iibsan kartaan saacadana way iibsan kartaan waxaanu haddii ay dawladdu aqbali weydo cabasheeda in Sunpowerna laga qabto oo ganacsiga xor laga dhigo inaanu ku mudaharaadno Sunpower oo aanu anagu awoodeeda iskaga celino masanti bay naga dajiyeen markii shidaalkii adduunku uu gaaray inuu 50% hoos u dhaco sidaa darteed waxaanu maxaa la dhahdaa ugu baaqaynaa dawladda Muuse Bixi wasiirka macdanta iyo tamartu dhex kama noqon karo maxaa la dhahdaa challengeska dhex yaala shirkadaha leedka dhex kama noqon karo waayo waxa uu ahaa shaqaale ka tirsan Sunpower intii aan la soo magacaabin nin shaqaale ka soo tirsanaa oo asxaabtiisii iyo dadkii uu la shaqaynayay iyo maxaa la dhahdaa meeshii uu hantidu ugu jirtayba jooga mar labaad anagu kuma aamini karno inuu maxaa la dhahdaa leedka caasimadda dhex ka noqon karo sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Muuse Bixi in horta ugu horeyn wasiirka xilka laga qaado oo wasiirkaas oo xilka laga qaado mooyaane anagu u malayn mayno inuu leedka Hargeysa noqon doono mid maxaa la dhahdaa xor si xornimo loo isticmaalo qof aan bil bashidan gurigii u xidhnaa waxa la oranayaa waa lagu leeyay lacagtii bil baaba xidhnaa leedku waxaana la yiri waa lagu leeyay xaafadaadba fasax qaadanayso waxa lagu leeyay leedku waa lagu leeyay wax cadaalad darro weeye waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inaanu gacan birays kaga qabanno iyo inaad naga qabanayso labadaas baanu madaxweynaha aanu taaganay inaanu gacan birays kaga qabanno oo mudaharaad ku sameeyno haddaanu xaafadii iyo inaad naga qabanayso shirkadda Sunpower ummadda cunahay haysa waa inuu tallaabo ka qaadaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si degdeg ah ummadaadan shicibka uga hawlgal madaxweyne annaga ku dooranay uga hawlgal nimanka Sunpower tallaabo ka qaadimka waa dalka waa inaanu shirinba waa in warshadii leedka dawladdan la soo celiya dawladdan soo warshadii leedka ay lahayd ee xukuumaddii hore siiraayay ibisay waa in ummadda dib loo soo celiya madaxweyne waxaan kugu hambaliyeenayaa sidaad wixii kaleba u soo celisay warshadda leedka noogu soo celi waxaan joognaa waan ku sugannahay siinay supermarket hortiisa xaafadda Axmed Dhagax waxaan doonayaa inaan ka hadalno maxay ahayd qoladan Sunpower ee shacabka cunaha qabatay marka koobaad waxaan doonayaa in dadka u sheego halkan aan taagna birtan naga sareysa waxa le shirkadda Talasom oo hadhigeeda ma maraya taan naga soo horjeedana waa Sunpower laakiin shacabka xaafadda Axmed Dhagax degan awood uma laha inay gashadaan shirkadda Talasom ee hadhigeeda dul marayo iyagoo ka helaya taakulo iyo gacan siin xagga dawladda qolada Sunpower waxay awood qasaba ay ku meelmarisay in aan qofka degan xaafadda Axmed Dhagax waliba gaar ahaan siinay inaanu gashan kareyn hadhiga dul maraya taasina waxay keenaysaa qofkii deegaanka hayay xaafadda degana inuu ku qasbanaado hadhiga Sunpower ee dul maraya Axmed Dhagax iyo isqoobista kamay waxaan u sheegaynaa cid kasta oo maqlaysa fiidiyogaas in xaafadda Axmed Dhagax iyo isqoobista kamay ay yihiin xaafad u diyaar ah in cid kasta oo ka shaqaysanaysa ay soo dhaweynayaan shirkadaha indhabirta gaafane iyo Talasom waxaan ugu baaqaynaa in ay alaabtooda iyo qalabkooga soo diyaarsadaan waxaan kala shaqayn doonaa in aan ka gacan siino wixii faasilis ay u baahan yihiin waxaan kaloo ku darayaa maamulka shirkadda Sunpower waxaan u sheegayaa annagu waxaan xor baanay annagoo xoraan dhalanay annagoo xoraan dhimanna cid kale oo nagu qasbi kartaa ma jirto rabitaankayga qodobka dastuurka 10aad wuxuu sheegayaa wuxuu qayaxayaa in muwaadin kasta xaq u leeyahay inuu helo surface uu suuq ku qanacsan yahay sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi waxaan ka codsanaa iyo maamulka iyo wasiirka tamarta iyo wasiirka tamarta in uu dhex ay ka noqdaan tartanka suuqa xorta ee shirkadaha oo aan cidna garab siin cidna aan ku cadaadin qaarna aan garab siin qaarna aan cagta hoos dhigin waxaan kaloo ku darayaa waxaan ugu baaqayaa shacabka Axmed Dhagax iyo Koobista Gamay
waxaa jira abaabul xaafadeed oo la doonayo sidii looga tashan lahaa shirkaddan cunaha ina haysa innakoo danteena raacayna oon cidna aan ku xumaynayn waxaa inoo ballanna inaan hawshaas sida ugu qurux badan aan u galno wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida tabtaas loo haynaysaa ka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya mashruuc beenaad ay shirkadda Sunpower ku dhagax dhigtay korontada ku shaqaysa cadceedda Oktoobar 2019 ayaa wuxuu yidhi dastuurka Soomaaliland wuxuu dhigayaa inuu ganacsigu xor yahay dawlad ahaanna waanu ilaalinaynaa xornimada suuqa korontada maanta waxaanu joognaa magaalo iyo xaafado ay soohdin dadsamee ah iyo khadkii cagaarnaa ee Baarliin u samaysatay shirkadda Sunpower wasiirkii macdanta iyo tamarta ee madaxweynuhu magacaabay wuxuu ku hawleeyahay inuu koriyo ganacsiga Sunpower oo uu dileeyo shacabka wuxuu ku hawleeyahay inuu nusqaamiyo oo uu xidho shirkadaha kale waa nooc dhiig miirad ah aad iyo aad baan uga xunnahay dhibaatada ka jirta qaybo badan oo Hargeysa ah ee ah inaanay heli karin koronto tayo leh oo u dhiganta lacagta ay bixinayaan balse ay qasab iyo cunaduub ku tahay in ay adeegsadaan shirkaddan kontolamoodka ee Sunpower waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha inuu ilaaliyo dastuurka inuu hoos u eego dadka in la ogolaado tartanka iyo suuqa furan ee lagu tartamayo tayada maanta waxaanu joognaa Axmed Dhagax oo khad cagaaran la dhex dhigay sidii Baarliin meelo badan oo kale magaaladiina way jiraan aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan leenahay xukuumaddu ama madaxweynuhu wax ka qabta arrinka noocaas dadweynuhuna ka xoroobaan heeriyada Sunpower oo ganacsigu waa xore xadhkaha gacantooda ku jiitaan oo ha gashadaan maanta waxaan ka hadlaynaa Sunpower oo markii hore ka haloolan jiray kadib markii ay la wareegtay leerkii ummadooda lahayd ee dawladda dabeetana Sunpower la baxday waxay samaysay shicibkii kootay ku xidhatay leer kaligeed bay noqotay kadib waxa ay noqotay inay u hanjabtaba shicibkii ay macalleedkoodii qaadatay dawladda ay iibsatay inay u hanjabto marka halkaan taaganay Telesom ayaa marta Telesomtu sakada ka soo horjeedana wax marta Sunpower sakada ka soo horjeedada qofku Sunpower naco oo Israa'iilka Telesom gasho qofkii waaba askar baaba loo keenayo waa loo cagajulaynaya saacada $10 kama yaran karto oranaya saacadaha u kala tilmaamayo oranaya saacada ma iibsan kartaan saacadana way iibsan kartaan marka waxaan leenahay hadii la yiraahdo waxaanu hadii ay dawladdu aqbali weydo cabasheeda in Sunpowerna laga qabto oo ganacsiga xor laga dhigo inaanu ku mudaharaadno Sunpower oo aanu anagu awoodeeda iskaga celino maadaama dawladda naga celisay aan weynay muxuu ahaa leerkii dawladdeena xidhnaana ganacsiga lagu wareejiyay waxa waajib nagu noqonaya inaanu iska dhicino ganacsatada dadka dhiig miiratada ah ee diidaysa in suuqii lagu tartamo dhalinyarta xaafadda Siinay waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye leerkan Sunpower waxa weeyaan ma aha leer cadaalad ku socda wadaadadan samaystay waxay sameynayaan qof aan bil bashidan gurigii u xidhnaa waxa la oranayaa waa lagu leeyahay lacagtii bil baabu xidhnaa leerku waxaana la yidhi waa lagu leeyahay xaafaddaadiba fasax qaadanayso waxa lagu leeyahay leerku waa lagu leeyahay wax cadaalad darra weeye waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inaanu gacan bira iskaga qabanno iyo daynaad naga qabanayso labadaasun baanu madaxweynaha aanu taagan inaanu gacan bira iskaga qabanno oonu mudaharaad ku samayno haddaanu xaafaddii iyo inaad naga qabanayso oo Telesom ay xor noo noqonayso labadaas madaxweynaha noo soo kala doon wassalaamu calaykum waraxmatullaahi dadweynuhu way salaamayeen halkan nagala socdaa halkan aan maanta joognaa waxa weeyaan aanu maxaa la dhahdaa cuna aan isku haynaa waxa weeyaan halkii ay ka soo bilaamatay cuna qabatay tan cuna isku haynaa waxa weeyaan maxaa la dhahdaa bartamaha degmada Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda Siinay halkan aan imka joogno oo iskii wadada Siinay maxaa la dhahdaa labada imka sakadood ee iska soo horjeeda
sakadan aan iminka aan taaganahay iyo sakadan kale naga soo horjeeda sakadan aan taaganahay cunaa isku hayno waa sakad aanay maxaa la dhahdaa awood u lahayn in leerka dul maraya inay soo gashadaan oo aan leerkii Telesom oo halkii soo gaadhay oo leerkiisa soo gaarsiiyay haddaan iminka isnaano u tagnaan kula ka leerka noo soo xidha markiiba waxay keenayaan ciidamo iyo dad diidaya in la xidho leerka shirkadda Telesom naloo geliyo xaafadda ama waa lagu sii fidiyo dadweynaha kala duwan ee maxaa la dhahdaa xaafadaha kala duwan ee xaafadda مشكلة ugu weyn ee caasimada haysta waxa weeyaan Hargeysa waxa ugu weyn ee laga isticmaali jiray wuxuu ahaa leerkii dawladda oo qalabkoodii birahoodii maxaa la dhahdaayay xarkahoodii wixii oo dhanba iyagii oo dhameystiran ayaa niman bareefada oo xalay toona sida TV-ga uga hadlayeen uga horgarnaqsanayeen golaha wakiilada arkaysan ayaa lagu wareejiyay markii lagu wareejiyay leerkii iyo maxaa la dhahdaay xarkihii iyo wixii dadku wada lahaa markii iyaga lagu wareejiyay ee dawladii hore ay ku wareejisay waxay keeneen inay awood u isticmaalaan bay naga dajiyeen markii shidaalkii adduunku uu gaadhay inuu 50% hoos u dhaco sidaa darteed waxaanu maxaa la dhahdaayay ugu baaqaynaa dawladda Muuse Bixi wasiirka macdanta iyo tamartu dhex kama noqon karo maxaa la dhahdaayay challengeska dhex yaala shirkadaha leerka dhex kama noqon karo waayo waxa uu ahaa shaqaale ka tirsan Sunpower intii aan la soo magacaabin nin shaqaale ka soo tirsanaa oo asxaabtiisii iyo dadkii uu la shaqeynayay iyo maxaa la dhahdaayay meeshii uu hantidu ugu jirtayba jooga mar labaad anagu kuma aamini karno inuu maxaa la dhahdaayay leerka caasimada dhex ka noqon karo sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Muuse Bixi in horta ugu horeyn wasiirka xilka laga qaado oo wasiirkaas oo xilka laga qaado mooyaane anagu u malayn mayno inuu leerka Hargeysa noqon doono mid maxaa la dhahdaayay xor si xornimo loo isticmaalo damayntii waxaan ugu baaqaynaa shirkadda Sunpower haddii ay maxaa la dhahdaayay maxaa la dhahdaa baaqyada kala duwan ee shacabka Soomaaliland ee ka imanaya dalka dibadiisa iyo gudihiisa iyo guud ahaan gobolada Soomaaliland oo dhan ay dhig u dhigi weydo oo ay leerka ummadda ka jabin weydo maadaama iyagu ay furayaasha ku haystaan gacanta maxaa la dhahdaayay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shirkadaha kale oo dhanba in ay si xor ah oo xalaalnimo ah ay wadanka uga shaqeystaan bixiyow ka qaba tallaabo ka qaad shirkadani dadka cunahaysa 24 saacadood leerka baxa 12 saacadood waa solar waa lacagtii midowga Yurub bixiyay waa la wada og yahay waqooyiga ahayd dawladdiisa Siiraayo markaan waxaan u soo jeedinaynaa wasiirka macdantana madaxweynaha waxaan leenahay waa inuu go'aan ka gaaraa shirkadda Sunpower cunaha ayay dadka haysaa guriga u jabo waxa laga qaadaa $30 waa ayaan daro caalamka Itoobiya haddaad tagtid ama xamara tagtid ama Djibouti guriga ugu badan waxa laga qaadaa $7 ama $6 Itoobiya inta waxa laga qaadaa $3 waa leerka dhan ee bisha qofka isticmaalayo waxa weeyaan Sunpower cunahay ummadda haysaa waa in tallaabo uu ka qaadaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guddiga la magacaabay inay dabagal ku samaysaa guddida macdanta ee loo magacaabay tamartana waa inay dabagal ku samaysaa Sunpower tallaabo laga qaadaa waxaan kaloo halkan ku hambaliyeynayaa dhammaan cid kastoo ka dhiididay shirkadda Sunpower go'aanka ah inay qiimaha jabiso war shalay Telesom baa lagu kacay Sunpower waa inay sidii Telesom yeeshaa oo ay ummadda u jabisaa haddii kale waxa weeyaan ummadda reer Somaliland go'aan waraada Telesom leerkeed buu jaban xaafadeeda siinay qiimo jaban buu lagu isticmaalaa waxa weeyaan ummadda waxaan u sheegnaa shirkadda Sunpower ummadda cunahay haysaa waa inuu tallaabo ka qaadaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si degdeg ah ummadaadan shicibka uga hawlgal madaxweyne anaga ku dooranay uga hawlgal nimanka Sunpower tallaabo ka qaadimka waa dalka waa inaanu shirinba waa in warshadii leerka dawladdan la soo celiya dawladdan soo warshadii leerka ay lahayd ee xukuumadii hore Siiraayo iibisay waa in ummadda dib loo soo celiyo madaxweyne waxaan kugu hambaliyeynayaa sidaad wixii kale u soo celisay warshadda leerka noogu soo celi wallahi waan kugu hambaliyeynaynaa waana ku dooran hadda warshadda leerka maanta noo soo celisay waxa weeyaan leerkii rag baa iska haystaadeer Sunpower waxa ummadda cunaa haysta guriga u badan waxa laga qaadayaa $100 $50 waa ummadda